كاد بدل ما تقول والله معنا وحويان وحشيش كان مالمها وحول مدوس بقلوات ماشي أنا جومني لو صعدنا مجال البلد وين ولا على درس يا ريال وكل حمري لما ما نكهر أيام كل واغني حبة جوجين الإلهي سبحانه وتعالى وإرجلي ما أنت يا هذا نفيس كي لبعض أنو قدرني أو هاي إن إسفهم في عن لجارو إن قبيه يدجالك iyo ciidamadii intaba marka waxaan ku guuleysanay in maxaan ku raadigal halkaas ku istaagay wax walba oo harayna wada hadal lagu dhameeyo odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii labada beelna aasaasan ku wada dhamaysanay marka maanta waxa weeyaan waxaan tagnay goobahaasna waxaan ka dhignay ilaa iyo heshiisada laga gaaro gooba ciidan kuwa dawladda amniga sugaya maxaan ku raadigaa wada shaqada ka haystay waxaan ahayn aysan tagi karin marka alxamdulillah marka fiiskii labaad oo ciidan badan raali ay ku tahay iyadoo heshiis leeyahay leesuna faraxsan yahay lagana wada heshiin doono waxyaabihii keenay inay waxaan dhacaan fiiskaas oo lisoo friisanayo ayaan u gudubnay insha Allah taala inay guul soo dhamaataan rajaynaa ilaahay idinka wasiir dhowr qodob ayaa ku xusnaa warqadda ay ku heshiiyeen beelaha haddii ay suuragal tahay dhageystayaasha ma la wadaadi kartaa qodobada ku xusan heshiiska oo ay tahay waajib in beelaha ay gutaan waajibaadka kaga aadan oo aysan ku xad gudbin walaalo waxa weeyaan dadkii intaan ku dhex jirnay meesha horta waxa weey qodobada waxa kamid ahaa gooba ama deegaan la isku qabsaday ay jira oo dagaalka markii uu ka bilowday horta markii koowaad goobahaas in wax ciidana ama hubeysan oo maxaan ku raahday beelahaas ah inay ka caagan tahay hadii ku xadgudubta ama dib geysata shakhsi iyo koox iyo qabiil u geysatana sharciga islaamka maxaan ku raahday lagu qaadayo isla markaana ganaax uu fuulayo shakhsigii ama qofkii hub ku dhaxawata meeshaasi lagu arkana oo beelahaas ka tirsan 6 bilood oo xabsi ah maxaan ku raahday la xirayo waxa weeyaan qodobadaas ugu muhiimsanaa isla markaana deegaanada sida gaarka dooda ugu taagan tahayna ilaa heshiisada laga gaarahay inaysan maxaan ku raahday cidna ay waxba ka dhisi karin marka arrimahaas ugu muhiimsanaa marka waxa weeyaan insha Allah taala waxa dhamaystirka iyo si dhaba inay wada hadlaan hadda gacanta waa la isgeliyay oo waa la isafiyay labada qof oo isla dhalatay ayaa dhaxal isku qabsato maxkamad isla tagta laakiin in colaadii ay dhamaatay waxa u dhaxeeyana ay raali ku yihiin waa hadal iyo walaalnimo inay ku dhamaystaan ay diyaar u yihiin insha Allah taala iyaduna inay soo gabagabadaan rajaynaa adigoon maalmaha lagu soo aadan insha Allah waa gartay dhibaatada ugu weyn ee haysta beelahan waxa kamid ah hubabka ay wataan qorshaha ma idinku jirta in hubka dhigis lagu sameeyo beelaha oo waqti walba suuragal ay tahay in dagaalami karaan haddii colaadii dib u soo laabato sida la socotaba waxa weeyaan waa taas waa waajib horena qayb badan oo kamid ah dhulkaas ciidamo hubeysan oo beela isalqaamay ayaa dadka cadawga ummadda Soomaaliyeed shabaab kula dagaalami jiray cid kastoo hadda gobolkan degan way ogtahay dad waxa jira sida dawladda dagaalku kala dhaxeeya shabaab ayaguna dagaal kala dhaxeeya ayaa jira qorshe in arrinka ama hubka loo helahay wax maanta soo bilowday ma ahan waa wax 2017 ilaa maanta aan joogno maxaa 2021 bishii May ay tahay qorshaheeda iyo codsigeeda iyo intaba aan dawladda federaalka xafiis walba ay qusaysan hordhignay yahay marka insha Allah taala arrinkaas qorshaha koowaad uu noo yahay hadee waana noo ahay dawladda ka gaabisay oo maxaan ku raahday arrinkaasi hirgelintiisii ay ku adkaatay ilaahay idinkii haddana waxaan dhacay ayagoo ka duulaya inay si dhab ah noola qaataan arrinkaas aan wada xalino ciidamadaasna maxaan ku raahday la qarameeyo ciidamada dawladda ay noqdaan diyaar ay u yihiin insha Allah taala wixii noqonayo wixii kalena hub ku dhis lagu sameeyaa waajib waaye marka hubka sharci darrada ee magaalada iyo Soomaaliya meel kasta yaalo waxa dhibaatada lagu gudbilayo waayada qorshe dhameystiran in laga yeesho laguna yani shaqo gala ama maxaan laga hol bilaabaa waajib ah iyo taas la sameeyana kama dhamaanayaba beela isdagaalay iyo dad islaayi ma dhamaanayaan waa gartay ugu dambeyn wasiir waxaynu ognahay in dadkan ay deegaan ahaan iyo maamul ahaan u hoos tagaan gobolka Hiiraan marka laga gudbana Hirshabelle ay hoos tagaan intaasoo heer oo maamul iyagoo ay hoos tagaan waa maxay sababta intaasoo dada oo maamul iyo deegaan bay xal ugu waayeen colaadan oo idinko heer federaal ah dantii qaranka hayana la idinkugu diray deegaanada aad ka soo jeedaan inaad xal u heshaan
horta aad baad u mahadsantihiin. horta hirshabeelle halkan beledweyne waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenkii, waxaa jooga goboltoorihii gobolka, ku-xigeenadii, gudoomiyihii degmada, ku-xigeenadii dhammaan duqi, saraakiishii amniga dhammaan way joogaan. horteena dee wax badan ay isku dayeen, waxgaradka magaalada ayaa yani guddiyo kala duwan sameeyey. haddee wax qadaran lama karaayo ee dadku dadaalkooda iyo intay karaankooda way bixiyeen. de inaan anaga maxaan ku rahdaa de bixitaankana halkaan imaanayna naftigeenu waxa weeyaan de yani de waxa ku bilowday isxilqaan ayuu ku bilowday. annaguna iyagaas oo shaqada sii waday mas-uuliyiinta hirshabeelle inaan kaabno wixii kale xoogaalnimo iyo aan ugu faral dhuubanahay aan ugu hoos marno ayaan u nimid. iyagaas baan yani kaabid iyo xoojin u ahaanay. marka intii dadaalkooda way wadeen, annaguna dee garab baan ugu ahaanay. marka waa si wada jir aan u wada wajahnay. marka wax gaar oo hadda iyaga ama asdhihi karno de wixii tabar ay u diiday cidna dee lagu eedi maayo, laakiin dadaalkooda way wadeen. waa gartay, ma jiraan wax tirikoob oo aad ku samayseen khasaaraha ka dhashay dagaalka muddooyinkan socda ee dhinacyada dhex maray? maya, weli maana u gudbin taas, mana ku samayn. waa gartay, wejiga saddexaad ee beelaha dhibaatada kala gaartay ay ku kala xalisanayaan goormaad filaysaan wasiirna aad u gudubtaan? wixiiba maantadan ka dambeeya insha allahu tacaala. marka ma rabna inaan ugu dhaafto xataa hadii un maalmo kooban ilaa 3 maalmood ka badan inaan u dhaafto ma rabna insha allah. qorshahanagu waa sida. waxaan rabaa halkan inaan ka akhriyo qodobada heshiiska xabad joojinta ee labada beelood oo walaalaha ah ee Jajaale iyo Makane, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waftiga dhexdhexaadinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed. heshiis hordhac ah, beledweyne, Talaado 13 Shawaal 1442 kuna beegan 25 May 2021 shir dib u heshiisiin u socday odayaasha waxgaradka beelaha walaalaha ah ee beledweyne ku dagaalamay oo ay garwadeyn ka ahaayeen mas'uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is-afgarad hordhac ah, waxaana lagu heshiiyey qodobada hoos ku qoran. 1 in ciidamada labada beel la kala diro. 2 in goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelo hubka ka caagan. 3 in deegaankii si gaar ah la isugu haysto cidna waxna ka dhisi karin ilaa heshiis kama dambays labada beel ka gaaraan. 4 haddii lagu arko qof hubaysan deegaanada lagu dagaalamay oo aan ahayn ciidamada dawladda waxaa lagu qaadayaa B in ciidamada ammaanka ay soo qabtaan qofkaas. 2 in la xiro 6 bil oo xabsi ah. 3 in qoladii jebisa heshiiska lagu ganaaxo lacag dhan $3,000. 4 ciddii qofkii dhib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shareecada islaamka. ugu dambayn, waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka heer gobol iyo heer degmo. sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyo waxgaradka reer Hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa xal u helidda dagaaladii ka socday beledweyne.